السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا halkan tahniyad uga diraya walaalaha muslimiinta caalamka daafiisa kuwada nool caawa ay tahay kowdii Ramadaan habeen khamiis ah. waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ugu mahadiyeynaa bisha barakaysan Ilaahayna gaarsiiyay. waa fursad aad u qaali ah oo cimrigaaga markuu soo marto. waa fursad Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu bixiyo. imisa sanadkii hore nooleed sanadka aan joogin, imisa sanadkii hore ka faa'iideysatay ana sanadkan ka faa'iideysan, imisa sanadkii hore dad badan ay soo mareen ana ka faa'iideysan, sanadkan ana ka faa'iideysan. Ilaahay jalla wa ala waxaynu ka baryaynaa oo weydiisanaynaa habeenka khayrka iyo fadliga badan ee Laylatul Qadriga iyo bisha barakaysan maghfirada iyo raxmada iyo naarta la isku xiranayo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala nagu daro. aqwati fil aqiidah, Allah subxaanahu wa ta'ala soonka ma uusan ugu waajib yeelin ummadda inuu dhigo. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala haraadkeena, oonkeena, rafaadkeena waxba kuma falaayo. laakiin Ilaahay jalla wa ala bishan wuxuu u keenay wax kale maahan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala dadka muxsiniinta ah, saa'imiinta ah ajir fara badan inuu siiyo. waxaa nabigeena ka sugnaaday salawaatullaahi wa salaamu calayh inuu yiri Ilaahay subxaanahu wa ta'ala asiga isku tiiriyay soomka oo yiri aniga ayaan abaal gudaayo. liannahu addoonka wuxuu ugu tagay raashinkiisii, sharaabkiisii, shahwadiisii, wixii macmacaansigiisii, sawjadiisii min ajri. maadaama Ilaahay dartii aad ugu tagtay, Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu ballan qaaday ujur aan la koobi karin. aqwati fil aqiidah, waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ugu mahadiyeynaa fursadda jamiilka ina soo gaarsiiyey, annagoo aad ugu farxeyno soo dhoweynta bishaan barakaysan, gacmo furna ku soo dhoweynayno, caawaynu ducaynaynaa. adinkuna waxaan idinka rabaa aamiinta inaad igu kaalmaysaan. awalan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaynu ku bilaabaynaa mahadintiisa iyo ammaantiisa. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala asigaa mahadsan, asigaa maamulkiiyo koonkan iska leh, asigaa wax walboo la mahadiyo midka ugu sii mahadda badan waa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala. Allah subxaanahu wa ta'ala waa qaadiru calaa kulli shay. Allah subxaanahu wa ta'ala waa samiic, waa basiir, waa caliim, waa khabiir, wax walba og Ilaahay jalla wa ala. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ammaano idin korkiisa ha ahaato. nabigeena salawaatullaahi wa salaamu calayhi naxariis yaalo nabadgelyaalo korkiisa ha ahaadaan. ilaahu waxaan ku weydiisanay bishaan fadligeeda, ilaahu keena buka caafi, ilaahu keena murugaysa murugta ka qaad, ilaahu keena wax wuxuu tabanaya ka tir, ilaahu xaajooyin alayna xaajooyinkeena guud, ilaahayow dembiilayaal ayaan nahay, dunuubtan oo dembi dhaaf, ilaahu naxariistaanaynu rajaynaynaa, cid kale kama rajaynayna. ilaahu subxaanahu wa ta'ala noo dembi dhaaf oo noo naxariiso oo noo galadayso. ilaahayow bishaan barakaysan fadligeeda ilaahuna sii. in alaala intii muslimiin ah ay murugaysan ama xabsi ku jirta, ilaahu xabsiga ka saar. kuwooda isbitaalada jiifa ilaahu caafi, ilaahu caafi. ilaahayow qof walba muraadle muraadkiisa oo khayrle ilaahu u sahal. ilaahayow adduunkan waynu ka wada tegayna, aakhirada noo hagaaji. ilaahu qabriga iyo qiyaamaha iyo maxsharka iyo siraadka ilaahu ku gudba wanaag ilaahu naga dhig. ilaahayow kuwa qaatimadooda loogu qatimaa kelimada tawxiidka laa ilaaha ila allahu muxammadu rasuulullah, ilaahu naga dhig. ilaahu noo naxariis, ilaahu noo naxariis. ilaahu kuwa xawdka nabiga calayhi salaatu wasalaam oon haddii la cabo aan laga daalaynin, ilaahu kuwa cabo ilaahu naga dhig. ilaahu siraadka sida birowda kale noo marsii. ilaahu waan liidanaa, camaashiina way yartahay, ilaahu camaashiina xooji. ilaahuna aqbalo na ajiib, ilaahuna aqbalo na ajiib. ilaahu adigaan gacmaha ku horagnay, adigaan ku barin, adigaa qaadira, adigaa caliima, adigaa basiira, adigaa